Sirdoonka guutada Libside waxa uu ku dhawaaqay in madfacu uu yahay mid madi ah haddana aan dhicin oo la doonayo magaciisa iyo cabsi gelin in loo geeyo goobta. Kulanti wanaagsan daawada kuna soo dhawo wararka dhambaalka wararka. Haddii daawada markii kugu horeysa ay tahana page-ka follow garaa si aad kaga mid noqotid kubanaanka kun ee saaxiibadana halkan kala socda wararkeena. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dagaalka Laascaanood Somaliland oo ku dhawaaqday xaaladda uu ku sugan yahay BM-ka laga keenay magaalada Buuhoodle ee yaalla jiida hore ee Laascaanood. Halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xogta dhabta iyo faahfaahinta ay ka bixiyeen gacanka hadal laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo xildhibaanada laba beelood oo xurguf ay u dhexayso Raxweyn iyo sidoo kale Habargedir maxaa isku diray buushinka muddo kororsiga oo mar kale carqaladeyn la kulmaya iyo sidoo kale xildhibaanada oo saddex garab u kala jabay. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barrena waxa uu horgeeyay liiska golaha wasiirada. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa wajahaya su'aalihii ugu adkaa isagoo ka mid ah dadka ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho. Heshiiska golaha wadatashiga qaranna markan guddi gaar ah ayaa gacanta ku dhigay kuwaasoo laga yaabo inay daaqada ka tuuraan. Siciidani oo saacadihii ugu dambeeyay xiriir la sameeyey islamarkaana ka dalbaday in waraaqaha heshiiskaasi la jeexjeexo. Muuqaalka sheergaraha qaybta hoose aragtidaada noogu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka. Ana ku bilownay xoogga militariga Somaliland ayaa shaaciyay in guud ahaanba la ogaaday lagana sal gaaray xogta mid ka mid ah madaafiicda culus ee la geeyay jiida hore ee Laascaanood. Weliba waxa ay sheegeen in xaaladiisu ay tahay mid aan haba yaraatee maalmihii ugu dambeeyey la baadigoobayay lana baarayay. Sida ay xaqiijiyeen militarigu waxaa jiri doontaa in aan cabsi weyn laga qabi doonin qorigaasi dhoomihiisa, iyagoo weliba xaqiijiyey inuu noqon doono mid magacooyaal u jooga jiida hore ee dagaalka. Waxay sheegeen in uu yahay madfac madi ah islamarkaana aan lahayn madaafiic kale oo garbihiisa safan, sidoo kalena aan dhicin oo maarta laga tiray islamarkaana dhuumihiisu goor hore ay noqdeen kuwa aan shaqaynayn oo daxale ay jarjartay. Waxay sidoo kale intaa ku sii dareen in sistamka iyo sidoo kale nidaamka qorigan lagu rido ee baraysku uusan sidoo kale ahayn mid laga shaqeeyey oo ku xiriirsan. Saraakiisha militariga Somaliland ayaa sheegay in saddex ka mid ah BM-ka culus uu yaalla hal goob oo ah teendhe ka mid ah dalladaha ay dhisteen xogaga Gooja Cadda ku sugan, taasoo micnaheedu uu yahay inaanay jirin cid madfac ku dhifan karta. Kalsooni ayaana loo dhigay goobta. Haddii BM uu yaalla aaggan, ma u malayn lahayd in madaafiicdeennu ay harsan lahayd hooskan qabow. Waxaad ogtihiin in ay jirto kalsooni muhiim ah oo ku aadan sirdoonkeenna iyo xogta ay soo xaqiijiyeen. Waxay sidoo kale sheegeen in ay fududahay in la bartilmaameedsado islamarkaana cidda xogtaasi keentay ay sidoo kale fududayn karto in dhexda laga toogto. BM-kan ayaa muddo waxaa hawshiisu ay ka socotay magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ama xarunta gobolka Cayna, halkaas oo dadaallo culus ay ka socdeen kuna aadan in taangigaasi in la kiciyo BM-kaasi islamarkaana ugu dambeyntii ayaa la geeyey jiida hore ee dagaalka. Waxayse xoogga SSC dhinacooda ay sheegeen in Somaliland ay ka warbogi doonto islamarkaana markay wararka soo qaadaan ay fahmi doonaan xaalka madfacan iyo waxuu yahay. La isku hayaabee la wada arke waxaa la sugayaa maalinta uu bilowdo dagaalka culus ee labada dhinac ay markan fuulinayaan islamarkaana hubka loo guranayo. Dhinaca kale haddii aanu eegnana militariga Somaliland ayaa waxay sheegeen in saacadihii ugu dambeeyey ay ka warheleen weerar culus oo kusoo wajahan islamarkaana la doonayo in mar uun la isku dayo sidii looga saari lahaa aagga Gooja Cadde. Waxay sidoo kale sheegeen in ciidamadu ay haystaan kalsooni buuxda oo ay kaga jawaabi karaan weerarkaas, iyagoo weliba xaqiijiyey in ay sii wadi karaan duqeymahooda. Dhinaca kale waxaa xoogga SSC ay dhankooda iyaguna sheegeen xiriir aanu la sameynay in ay Somaliland ka go'day rasaasta culus ee BM-ka iyo sidoo kale hubiyaha oo lagu duqeynayay magaalada, taas oo aan si wacan markan ugu filnayn. Waxayna sheegeen in saadka iyo saanada ay haystaan ay tahay mid maalmo kooban ku harsan, waa maalmo kooban ku eg islamarkaana laga go'doomin karo.
militariga waxay sheegeen sidoo kale in uu markan u muuqdo in qaybo badan oo ka mid a saldhigyada iyo goobahaas ay u durjinayaan difaacyadooda dib si aan dhabarjebin adag loogu qaadin. dhinaca kale haddii aanu eegnana bal muqdisho, xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa laga cabsi qabaa qaarkood inay gacanta iskula tagaan kadib markii 2 bilood ay iska dhex arkeen muranka siyaasiga ee ka jira waddanka. xildhibaanadan oo kasoo kala jeeda beelaha raxan weyn iyo sidoo kale habargedir ayaa waxa ay muddooyinkan isku maandhaafsanayeen arrinta Baraawe oo mar kale dib loo soo celin doono baarlamaankana xildhibaano ay doonayaan inay doodooda keenaan maadaama aynan helinin ciddii ay filayeen in degmada ay si rasmi ula wareegto laga dulqaaday militariga sidoo kalena lagu wareejiyo koonfur galbeed. waxayse sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aan ka hirgelayn deegaanada islamarkaana aynan aqbali doonin oo aan la aqbali doonin in koonfur galbeed ay marti ka noqoto magaaladaasi. waxay sidoo kale sheegeen in ciidanka militariga ee degan degmada Baraawe ay yihiin ciidan maleeshiya beeleed ah kuwaasoo u baahan in si degdega looga saaro waana arrinta la doonayo in guddoonka baarlamaanka la hor keeno. waxaana sidoo kale qorshaysan in ajendahaasi uunan ka mid noqonin fadhiga baarlamaanka qodobada looga doodayo maadaama uu taagan yahay qodob weyn oo la xiriira muddo kororsiga hay-adaha dowladda oo muddo dhowr jeer fasaxyo ay ka dhex galeen xildhibaanada iyadoo weliba ra-iisul wasaaruhu uu gudbiyey liiska golaha wasiirada ee su-aalaha lagu weydiinayo fadhiga berri furmaya. si walbaba ha ahaatee waxaa wajahayaa fadhigani 2 aragti oo khatar badan oo kala ah mid la xiriirta muddo kororsiga wax ka beddelka dastuurka iyo sidoo kale xildhibaanada beel ahaanta markan isku ugaarsanaya iyadoo weliba intaas ay sii dheertahay in doodo ay noqon karto mid falcelin iyo sidoo kale gacan ka hadal sababta. waxaana wararkan helayna ay tilmaamayaan in la kordhiyey tirada mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee tegaya xarunta golaha shacabka. dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dhammaan horgeynaya golaha wasiirada xildhibaanada golaha shacabka liis ra-iisul wasaaruhu uu soo qoray ayuuna kula wadaagay xildhibaanadu inay su-aalo weydiiyaan wasiirada, wasiirka amniga gudaha, wasiirka gaashaandhigga, arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga qaranka oo ah midka berri lagu bilaabayo ayaa su-aalo weydiintan wajahaya. waxaana saxiixay waraaqda mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hoggaanka habdhowrka baarlamaanka oo ugu horeeya habdhowraha guud. waxaana loo xaqiijiyey in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu doonayo in golaha wasiirada laga soo dhex saaro qaar badan oo ka mida mugutayaasha shaqadooda kuwaas oo ka gowsaysta xasan sheikh islamarkaana aan lagu degdegi karin xilka qaadistooda iyadoo weliba wasiirada qaarkood ay kasoo dhex muuqdeen arrintooda. wasiirka amniga gudaha soomaaliya doodisho ayaa ka mid ah xubnaha aan shaqadooda lagu qancinin balse ay dabooleen dadaalada ay sameeyeen ciidanka amniga ee gobolka banaadir. wasiirka amnigu kama u bixin magaalada muqdisho tan iyo markii xilkan loo magacaabay ma tegin gobolada dalka, amniga qarankana ma ku yeelan wax saameyn oo sida u weyn marka laga reebo xitaa isagu inuu ku dhaawacmay oo lug kaga jabay warar ka dhacay aagga madaxtooyada isagii oo ah wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa isagana hortegaya golaha wasiirada oo maalinta xigta su-aalo weydiinta ay ku bilaabanaysaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo isagana la weydiinayo arrimaha la xiriira wejiga labaad ee dagaalka xoreynta waddanka iyo sidoo kale arrimaha ciidamada. waxaa sidoo kale wax laga weydiinayaa bixitaanka ciidanka midowda Afrika oo wareejiyey 7 saldhig qaarkoodna goor hore ay la kulmeen weeraro culus. xogtaanu helnay ayaa sidoo kale waxay tilmaamaysaa in xildhibaanada qaarkood ay doonayaan in ay su-aalaha ka dhigaan kuwo lagu difaacayo xukuumadda halka xildhibaanada qaarna ay doonayaan in ay ka dhigaan su-aalaha kuwo aan ahayn shaqsi weerar balse ku salaysan shaqada qaranka. dhinaca kalena guddi ayuu gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxa uu saaray arrinta heshiiskii golaha wadatashiga qaran kuwaas oo la sheegay in saacadihii ugu dambeeyey wicitaanadooda
iyo sidoo kale xiriirkooda uu badiyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Xogtaan helnay ayaa tilmaamaysa in heshiiska lagu dhiirigelinayo xildhibaanada in daaqada laga saaro halka mas-uuliyiinta xukuumadda iyo sidoo kale guud ahaan maamul goboleedyada intooda badan ay dabada ka riixayaan in heshiiskaasi duuduub lagu qaato, golaha wadatashiga garanna aan dib loogu celinin oo aan la laalin. Heshiiskani waxa uu noqonayaa mid jihaynaya doorashooyinka dalka ka dhacaya. Wuxuu sidoo kale leeyahay habraacyada isbeddelka dastuurka dalka. Wuxuu sidoo kale u horseedayaa in ay xukuumaddu diyaariso doorasho qof iyo cod ah, iyadoo weliba sida ay xogta inoo xaqiijiyeen ay jiraan xildhibaano badan oo ka soo horjeeda muddo kororsiga iyo sidoo kale isbeddelka dastuurka. Ayaa la doonayaa in maalmaha soo aadan la iswaafajiyo. Muuqaalka share garow like saar qaybta hoosena aragtidaada nagu reeba ku xirna wararka dhanbaalka wararka nabadgelyo.